habeen wanaagsan daawadayaal waxaan rabaa inaan kuu soo gudbiyo xogo iyo macluumaad degdeg ah oo soo kordhay saacadihii la soo dhaafay qodobada xasaasiga ah ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya General Odawa Yusuf Raage oo awood ciidan ku soo galay caasimadda xilli uu ka badbaaday isku day lagu doonayay in lagu qaarijiyo oo ka dhacay mid ka mid ah baraha kontaroolada ee laga soo galo magaalada Muqdisho General Odawa iyo ciidankiisa oo gudaha u galay guriga madaxweyne Farmaajo waxaan kula wadaagi doonaa hanjabaad culus oo uu diray General Odawa Yusuf Raage taliyii hore ee ciidanka xoogga dalka oo maanta ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay isku dayeen inay ka hor istaagaan isaga iyo ciidankiisa inay gudaha u soo galaan magaalada Muqdisho haddaba sidee wax u dhaceen halkee bay ka dhaceen maxaa xoog oo laga qariyay waxaan kula wadaagi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay oo dhameystiran oo arintaasi la xiriira qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii Allah awoodda uu raali ka noqdo annaguna aan idiin soo gudbin doono waxaa qayb ka noqonaya saraakiisha ciidanka beesha Hawiye oo ku hanjabay in ay dagaal ka xigi doonaan in ay qaataan amarka hubka looga dhigayo ee ka soo baxay dawladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud saraakiisha ciidanka oo caawa kulan degdeg ah ka yeeshay dhacdadii maanta lagu weeraray General Odawa Yusuf Raage iyo saraakiisha ciidanka beesha Hawiye oo ku baaqay in ay u midoobaan dagaalka ka dhanka ah dawladda dhexe federaalka Soomaaliya qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii alla laga helo annaguna aan idiin soo gudbin doono waxaa qayb ka noqonaya ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo caawa howlgallo culus ka wada shabeellaha dhexe horjoogayaal caan ah oo kooxda dhexdeeda caan ka ahaa oo la shaaciyay in ay ku geeriyoodeen dhaawacyo culus oo ka soo gaaray duqeymo saacadihii la soo dhaafay maleeshiyaadka kooxda shabaab lagula beegsaday deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaan kula wadaagi doonaa xogta macluumaadka wararkii ugu dambeeyay howlgallada culus ee soconaya ciidanka dawladda iyo kuwa dadka deegaanka xilligan halka ay ku sugan yihiin duqeymaha culus ee caawa laga maqlayo qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe magaalooyinka la bartilmaameedsanayo maleeshiyaadka kooxda shabaab ee ka farxaday deegaanadaasi iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay howlgallada culus ee socda ayaan kuu soo gudbin doonaa qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii alla laga helo annaguna aan idinla wadaagi doonno waxaa qayb ka noqonaya ciidanka beesha warsangeli oo caawa weeraray fariisimo ciidanka General Mahad Cambaashe ay ku leeyihiin magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag iyo xiisad culus oo ka taagan gobolkaasi maxaa ka jira in General Mahad Cambaashe mar kale si dirqi ah uga badbaaday rasaas ay fureen ciidamo ka tirsan kuwa beelweynta warsangeli ee ku sugan magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag magaalada Ceergaabo maxaa ka soconaya hadda maxay yihiin dhaqdhaqaaqyada culus tallaabooyinka military ay qaadayaan ciidanka militariga Somaliland waxaan kuu soo gudbin doonaa xogo iyo macluumaad ka daahsoon oo arintan la xiriira qodobada iyo qodobo kale wixii nagu soo kordha ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay fadlan nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe buggan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga helaya wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinku soo gudbinayno soo dhawaada daawadayaal qaybaha ugu horeeya ee wararkeena ayaan si toos ah u guda gelaynaa waxaan ku bilaabaynaa qodobka ugu horeeya ee warkeena waana habeenimo talaado ah tirada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 5 bisha May 2026 toban maalin oo kali ah ayaa u hartay dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo dhawaada daawadayaal waxaan ku bilaabayaa qodobkeena ugu horeeya ee caawa General Odawa Yusuf Raage ayaa awood ciidan ku soo galay caasimadda xilli uu ka badbaaday isku day la doonayay in lagu qaarijiyo oo ka dhacay mid ka mid ah baraha kontaroolada ee laga soo galo magaalada Muqdisho jananka iyo ciidamo aad u hubaysan oo wata gaadiidka dagaalka oo ka yimid dhinaca iyo gobolka Shabeellada Hoose ayaa soo maray deegaan lagu magacaabo Ceelhuur oo dhaca duleedka magaalada Muqdisho qaybna ka ah baraha kontarool ee laga ilaaliyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa isku dayeen ciidankii halkaasi ku sugnaa in gebi ahaanba jananka iyo ciidankiisa dib loo celiyo sidoo kalena aysan soo gelin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho laakiin maxaa ka dhacay goobtii General Odawa Yusuf Raage la isku dayay in lagu taagtaago sidoo kalena wararka qaar ay tilmaamayaan la doonayay in lagu qaarijiyo jananka oo watay ciidamo aad u hubaysan
oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ku soo aaday mid ka mid a baraha kontaroolada ee sida aadka ah looga ilaaliyo magaalada muqdisho. dowladda federaalka soomaaliyana ay mamnuucday in kontarooladaasi ay ka soo galaan saraakiil iyo ciidamo hubaysan oo gudaha u soo galaya magaalada muqdisho. genaraal odawaay yuusuf raage oo 2 jeer soo hogaamiyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayay maanta isku dayeen ciidamo ka tirsan kuwa markaasi kontaroolada la dhigay in ay celiyaan sidoo kalena ay ka hortagaan tallaabooyinka uu qaadayo isaga oo doonaya in magaalada caasimadda ah ee Muqdisho uu soo galo. generaalka ayaa la tilmaamay in uu watay 6 cabdibile oo ah gaadiidka dagaalka Soomaaliduna ay markaasi aadka u isticmaasho iyo ciidamo aad u fara badan oo markaasi ciidanka generaalka ahaa ee ilaalinayay maadaama uu yahay nin 2 jeer soo qabtay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kalena ah janan ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee wali aan howlgabka noqonin. genaraal odawaay yuusuf raage isaga iyo ciidankiisa sida caadiga ah markii ay soo istaageen barta kontarool waxaa laga warbixiyey generaalka ciidanka iyo waxa ay wadaan iyadoo loo sheegay ciidankii ku sugnaa barta kontaroolka in ay wadaan ciidamadii la socday generaalkana ay ku wargeliyeen genaraal odawaay yuusuf raage taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in uu saaran yahay gaadiidkan. laakiin goobta maxaa ka dhacay? waxaa mid ka mid ah markaasi raggii ilaalinayay jagboontiga amaba mas-uulka ka ahaa ayaa gebi ahaanba diiday in jananka iyo ciidankiisa ay gudaha u soo galaan magaalada muqdisho iyadoo generaalka arrintaasi markii lala wadaagayna uu si aad ah uga carooday. waxaa la arkayay genaraal odawaay yuusuf raage oo gaariga daaqadiisa iska soo jaray sidoo kalena kala tuuraya mid ka mid ah saraakiishii haystay ciidankii goobta ku sugnaa. waxaa dhacay istaagtaag. waxaa sidoo kale la tilmaamay in generaalka xitaa nafsadiisa goobtaasi khatar ay ku geli kartay maadaama ciidanka la tilmaamay in ay markaasi qoryo iskula baxeen. ugu dambayntiina genaraal odawaay yuusuf raage si awood ah ayuu ku soo galay magaalada muqdisho isaga oo wata gaadiidkiisa dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan isla markaasina aysan jirin cid markaasi ka hor istaagi kartay in uu soo galo caasimadda. waxaana la tilmaamay in genaraal odawaay yuusuf raage ugu dambayntii uu markaasi dabcan gudaha magaalada muqdisho soo galay sidoo kalena dabcan uu ka soo tallaabay bartii kontarool ee la doonayay in markaasi generaalka iyo ciidankiisaba in dabcan lagu celceliyo iyadoo halkaasina ay ka dhacday fadeexad aad u xoog badan oo ay la kulmeen saraakiishii ciidanka hogaaminayay ee doonayay in ay markaasi generaalka celiyaan. ciidamada generaalka uu watay oo ah kuwa markaasi la tilmaamay in ay yihiin aad kuwa u tababaran loogu talagalayna in ay ilaaliyaan madaxda xilalka sare soo qabatay ayaa waxa ay muujiyeen dhabar adeygii ugu xoogganaa iyaga oo tilmaamay in aysan goobta ka laaban doonin sidoo kalena ay xabad ka xigaan in ay dib uga laabtaan goobta. generaalka iyo ciidankiisa markii ay ka soo tageen goobtii kontaroolka ahayd ee lagu taagtaagay ee ceel huur la yidhaahdo ayaa waxaa la tilmaamay in ay soo aadeen dhinaca iyo magaalada caasimadda muqdisho. waxaana la tilmaamay generaalka iyo ciidankiisa iyaga oo aan kala harin in ay gudaha u galeen guriga uu degan yahay madaxweynihii 9aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo maalmihii ugu dambeeyaba jananka uu garab iyo gaashaan u ahaa maadaama siyaasad ahaan genaraal odawaay yuusuf raage iyo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ay aad iskugu dhow yihiin. caawa waxaa la tilmaamay in ay soconayaan kulamo xasaasi ah oo saraakiisha ciidanka iyo sidoo kale genaraal odawaay yuusuf raage intaba u soconaya oo markaa kulamo dhinaca amniga looga hadlayo iyo saraakiisha oo markaasi ka soconaya guriga madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ee ku yaala garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho xayndaabka ku xeeran. waxaa la tilmaamay in laga wada arrinsanayo xaaladii dhacday iyadoo saraakiil uu ka mid yahay genaraal odawaay yuusuf raagana xilligan ay markaasi wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa oo ay ku doonayaan inay kaga hortagaan tallaabooyinka ay qaadayso xilligan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ee markaasi la doonayo in saraakiisha ciidanka iyo sidoo kale generaaladii horay xilalka u soo qabtay in markaa looga hortago tallaabooyinka ay qaadi karaan ee ku aadan arrinta markaasi la xiriirta xaaladda xilligan soo korortay ee dhaqdhaqaaqyada culus markaasi dabcan ay samaynayaan ciidamada markaa dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan jagboontiyada.
generaal odawa yuusuf raage mar arrinta wax laga weydiiyey inkastoo warbaahinta uusan la hadlin waxa uu tilmaamay in uu ah shirqool loogu talagalay in lagu qaarijiyo islamarkaasina dabcan ka dhacay mid ka mida kontaroolada ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan aagga jaziira halkaasi oo ah mid ka mid ah goobaha xilligan ee dowladda federaalka soomaaliya ciidamada ay u xil saartay in aan laga soo gudbi karin sidoo kalena aysan markaasi macquul noqon karin in ciidamadu ay markaa ka soo tallaabaan ama ay ka soo gudbaan oo dhinaca caasimadda ay soo galaan arrintan waxa ay muujinaysaa in generaal odawa yuusuf raage iyo ragga kale ee saraakiisha ah in ay galayaan diyaargarow ballaaran wixii ka dambeeya 15 May waxaana qayb uu ka yahay generaal odawa yuusuf raage saraakiisha cabsida xoogan laga muujinayo in xilligan garabka mucaaradka ay ku biiraan sidoo kalena ay markaasi ka soo horjeestaan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo sida awgeed xitaa la tilmaamay in xilka looga qaaday sidoo kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xilka u dhiibay nin markaasi dabcan isaga markaa dabcan uu majaraha u hayn karo sidoo kalena aan noqon karin odawa yuusuf raage oo kale haddaba dhacdada maanta ku dhacday generaal odawa yuusuf raage iyo kulamada xasaasiga ah ee soconaya wixii ku soo kordha oo warar ah wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii allah ugu dala u raalli ka noqdo markana saraakiisha ciidanka beesha hawiye ayaa ku hanjabay in ay dagaal ka xigayaan in ay qaataan amarka hubka dhigista ah oo ay soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo saraakiisha ciidankana xilligan ay galeen difaacyadii ugu cuslaa aan ka dabageeyay macluumaadiyadii ugu dambeeyay iyo kulamada xasaasiga ah ee ka soconaya magaalada muqdisho ee saraakiisha ciidanka ee markaasi dhaxmaraya waxaa jira saraakiil badan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan kuwa howlgab ah kuwa markaasi wali qaranka u shaqeeya laakiin si dadban ula shaqeynaya qaranka waxaa la tilmaamay in saraakiishan dhammaantood lagu amray in ay hubka dhigaan sidoo kalena ay soo wareejiyaan sanada ciidan oo ay gacanta ku hayaan ragga diiday in hubka laga dhigo waxaa qayb ka ah generaal indhacadde generaal cabdi xasan cawaale qaybdiid xasan jaamici iyo rag kale oo saraakiil ah oo ka soo kala jeeda beelaha murasado iyo abgaal iyo sidoo kale habargidir waxaana la tilmaamay in saraakiishaasi caawa kulan degdeg ah ay ku leeyihiin magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dayniile ee gobolka banaadir halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay geed fadhi u noqotay saraakiisha ciidanka ee ka soo horjeeda dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud macluumaadkii ugu dambeeyay ee xasaasiga ah ee aanu helayno ayaa tilmaamaya in saraakiisha ciidanka ay ka wada arrinsanayaan xaaladdu sida ay noqon karto dhaqdhaqaaqyada culus ee soconaya tallaabooyinka ay qaadayso dowladda federaalka Soomaaliya iyo sida xilligan looga hortagi karo in dowladdu ay isku daydo in saraakiisha xitaa banaanka magaalada ku maqan loo diido in gudaha caasimadda ay soo galaan sidii maanta dhacday oo kale oo generaalkii taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 2 jeer soo noqday lagu taagtaagay duleedka magaalada muqdisho control ku yaala oo loo diiday in uu gudaha u soo galo magaalada ugu dambeyntiina ay noqotay in uu jananku soo dego awoodiisana uu isticmaalo isla markaana uu ka soo gudbo mid ka mid ah kontarooladii ee markaasi dhacdadan la yaab kale ay ka dhacday arrintan waxaa la tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku noqonayso fadeexadii ugu xooganayd maadaama saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dalkan soo hogaamiyay ciidamada qaybahooda kala duwan xilligan ay mudan yihiin in markaasi la maamuuso laakiin aysan mudnayn taasi bedelkeeda in markaasi la qaado tallaabooyin iyaga lagu qalqalgelinayo arrintaasi oo abuuri karta fawdo iyo sidoo kale arrimo kale oo markaa aan macquul ahayn sida la tilmaamay macluumaadiyadii ugu dambeeyay ee aanu helayno ayaa waxa ay cadaynayaan ama ay markaasi tibaaxayaan in ay soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xooga badnaa oo dhinaca markaasi abaabulka ciidanka ah saraakiisha ciidanka ee caawa kulamada yeeshay ayaa tilmaamay in iyagu qudhooda diyaargarowga ugu xoogana ay gelayaan sidoo kalena ay ka hortagayaan tallaabo walba oo ay qaadi karto dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya arrintaasi oo muujinaysa in xilligan markaasi saraakiisha ciidanka kuwii hore iyo kuwii hadda markaasi shaqaynayaba intaba la doonayo in markaasi hubka looga dhigo xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa xilligan abaabulaya
ee saraakiisha ciidanka ee ugu badnaa kuwaasi oo ay doonayaan in ay fuliyaan dhaqdhaqaaqyada dhinaca ciidanka ah oo sidoo kale looga hortegayo 15 May iyo tallaabooyinka ay qaadi karto dowladda federaalka Soomaaliya arrinta la xiriirta hubka dhigista ayaa imaanaysa xilli markaasi mudaxileedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu gabagaba yahay mar walba oo dowladda mudaxileedkeeda uu gabagaba noqdana waxa bilowda in saraakiisha ciidanka ay ku biiraan garabka mucaaradka saraakiil badanna markaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu cabsi ka qabo in ay abuuraan dagaalkii badbaado qaran oo kale arrintaasi oo muujinaysa in xaaladdu ay noqon karto mid markaasi ka sii dari karta ayadoo taasi laga duulayo sidoo kalena laga hortagayo waxa la tilmaamay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qaadayo tallaabooyin aad u culus oo uu ku doonayo in uu kaga hortago tallaabooyinka ay qaadi karto dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan arrimaha la xiriira dhinaca dagaalka waxaana xilligan muuqanaysa in saraakiisha ciidanka la doonayo kuwa magaalada banaankeeda ku maqan ee markaasi furmaha dagaalka jira gebi ahaanba in loo diido magaalada in ay soo galaan iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay amar ku bixisay in aan la aqbali karin sarkaal ciidan oo wata gaadiidka dagaalka iyo hub aad u culus in uu gudaha u soo galo magaaladan sida General Odawa Yusuf Raago oo kale maadaama jananku uu yahay nin muddo dheer la soo dagaalamayay maleeshiyaadka kooxda shabaab sidoo kalena uu wato hub iyo gaadiid dagaal oo aad u fara badan maadaama nafsadiisa uu markaasi ku ilaalinayo haddaba saraakiisha ciidanka kulamada ay caawa leeyihiin iyo wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii Allah ugu dalo uu raali ka noqdo markana ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo culus waxa ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo horjoogayaal caan ka dhex ahaa kooxda shabaabna ee markaasi la shaaciyay in ay dhaawacyo ka soo gaaray duqeymo ka dhacay saacadihii la soo dhaafay gobolka Shabeellaha Dhexe ay u geeriyoodeen macluumaadkii ugu dambeeyay ee aanu helayno iyo dhaqdhaqaaqyada culus ee xilligan la soo warinayo ayaa tilmaamaya in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed caawa howlgalladii ugu cuslaa ay ka wadaan deegaano dhaca duleedka magaalada Wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaasi oo asaldhig muhiim ah oo ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka wararkii ugu dambeeyay ee caawa aanu helayno ayaa tilmaamaya in dhaqdhaqaaqyada ciidanka ay wadaan ay yihiin kuwa markaasi lagu barataarayo xaaladda guud ee dhinaca amniga iyo sidoo kale la wareegitaanka deegaanada ka maqan gacanta dowladda federaalka Soomaaliya oo maleeshiyaadka kooxda shabaab ay gacanta ku hayaan sidoo kale howlgallada waxa la tilmaamay in ay barbar socdaan duqeymo aad u culus oo diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamka ay ka fulinayaan meelo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana meelaha caawa howlgallada iyo sidoo kale duqeymaha ay ka soconayaan qayb ka ah degmooyinka Masaajid Cali Gaduud Aadan Yabaal iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe rag ku dhaawacmay saacadihii la soo dhaafay dagaaladii dhacay iyo duqeymihii ayaa la tilmaamay oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda shabaab in ay geeriyoodeen inkastoo aan la ogeyn markaasi dabcan raggan geeridooda iyo sidoo kale wararka madax bannaan oo xaqiijinaya ila wareedyada annagu aan helnay waxaana macluumaadka hadda la helayo ay tibaaxayaan in ay soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa oo dhinaca ciidanka ah sidoo kalena lagu barataarayo howlgalka ka dhanka ah kooxda shabaab ayaa deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe lagu soo waramayaa in ay iskaga firxadeen kadib markii ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka howlgalladii ugu cuslaa ay markaasi ku kulaalayaan xilligan deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe halka duqayntii ugu ballaarneedna ay ka soconayso gobolkaasi oo deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe xilligan ay duqeeyeen ciidamada xoogga iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamka ee dhinaca cirka Soomaaliya ka taageeraya macluumaadka hadda aanu helayno ayaa sidoo kale waxa ay ku waramayaan in ay soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogana oo dhinaca dagaalka ah isla markaana la soo warinayo saacadihii la soo dhaafay in ay ka dhaceen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ciidanka ayaa Wargaadhi waxa la tilmaamay in ay markaasi ka xirteen difaacyadii ugu cuslaa iyadoo sidoo kale ciidamo aad u fara badan oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwanna ay ka baxeen Wargaadhi iyo meelo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaasi oo ku sii jeeda deegaanada ka maqan gacanta dowladda federaalka Soomaaliya macluumaadkii ugu dambeeyay ee aanu helayno ayaa tibaaxaya in xaaladda gobolka Shabeellaha Dhexe xilligan ay tahay mid mar kale markaasi u xoobsiibanaysa in ay dabcan ka dhacaan dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda shabaab iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan ugu dambeyntiina ciidanka beesha warsangeli ayaa caawa weeraray fariisimo ciidanka General Mahad Cambaashe ay ku leeyihiin magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag iyadoo xiisad culusna ay ka taagan tahay gobolka Sanaag
macluumaadkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno gobolka Sanaag ayaa ku waramaya inay soconayaan dhaqdhaqaaqyo aad u xoog badan oo dhinaca ciidanka ah isla markaana lagu barataarayo howlgalka ka dhanka ah ee markaa ciidanka ee militariga Somaliland ee ka soconaya gudaha magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaadka hadda aanu helayno ayaa waxa ay cadaynayaan ama ay tibaaxayaan in dhaqdhaqaaqyada xilligan la dareemayo ay yihiin kuwa markaasi aad dabcan ay markaa u samaynayaan ciidanka militariga ee maamulka waqooyi bari iyo sidoo kale ciidanka beesha warsangeli ciidamada beesha warsangeli oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka nuucyadiisa kala duwan oo saacadii la soo dhaafay gudaha u galay magaalada Ceergaabo ayaa la tilmaamay in ay weerareen deegaano fariisimo u ahaa maleeshiyaadka ciidanka ee markaasi Somaliland gaar ahaan ciidanka uu hogaaminayo General Mahad Cambaashe waxaana la tilmaamay in markii labaad General Mahad Cambaashe uu ka badbaadayo isku day lagu doonayay in lagu qaarijiyo kaasi oo ka dhacay deegaano ka tirsan ee markaasi gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo oo jaranka iyo ciidankiisa ay ku sugan yihiin xogaha iyo macluumaadka la xaqiijiyay ee hadda aanu helayno ayaa tibaaxaya in ay soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa oo dhinaca ciidanka ah isla markaana lagu barataarayo howlgalka ee markaasi ka soconaya magaalada Ceergaabo oo beesha warsangeli iyo beesha dhulbahante ay ku heshiiyeen in howlgalladaasi ay noqdaan kuwa markaasi dabcan xilligan lagu doonayo in magaalada Ceergaabo loogala wareego ciidanka Somaliland ayaa qudhooda waxay galeen difaacyadii ugu cuslaa iyaga oo doonaya in ay kaga hortagaan weerar walba oo kaga iman kara dhinaca maamulka waqooyi bari iyo sidoo kale ciidanka beesha warsangeli magaalada Ceergaabana caawa waxa lagu soo waramayaa inay ka taagan tahay xiisad dagaal oo markaasi sababi karta in dhinacyadu ay markaa isfarasaaraan wixii ku soo kordha oo wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii aad nagu cusubtahay waxaan ku leenahay fadlan nagu soo biir like saar muuqaalkan subscribe bogan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga helaya wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinkugu soo gudbinayno waa maasantiin daawadayaal soo dhawaada waxaan idin leenahay habeen wanaagsan